بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين وودا سلامنتين قفل بمقام كيسي مسؤولية ديسا marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan halka tacsi uga diro qoyskii iyo ehladii iyo dawladaba wasiirkii hore wasaaradda amniga Puntland oo xal ku geeriyooday magaalada Garowe waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu naxariistii janno geeyo dhammaanteena uu samir iyo iimaan uu naga wada siiyo idinkan waxaan naga rajeynayaa inaad u duceysaan inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u naxariisto waxaan aad ugu faraxsanahay inay maxadka heritage oo shir noocan ah madaxda Soomaaliya isugu keeno oo ka duwan shirarkii albaabada u xirnay isugu imaan jireen oo ah madal dood wadaag ah oo ra'yigooda ay ku cabirayaan waxaan kaloo uga mahadcelinayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi oo runtii dooda noo furay oo si fiican u faahfaahiyay ra'yigiisa iyo sida uu u arko oo anigu u fasirtay ra'yiga dawladda inuu sidaa yahay waxaan rabaa inaan dib u yara noqdo mar haddii doodii la furay soo dhoweyntii way dhammaatay marakan aragtideedaan cabiraya in wax la isku tuurtuuro soo dhoweynta ka mid tahay saa degora ku qanca insha Allah dabcan Soomaaliya marxaladaheeda isaga sheekeen meeno marxalado dhowr ah ayay soo martay marxaladda isticmaalka marxalad yar oo kooban oo 9 sano oo dawlad rayid ahayd iyo marxalad dheer oo 22 sano oo nidaam military ah oo xukunku uu meel kaliya ku urursan yahay dadkana meel qura loo jiheeyo iyo 30 sano oo dalku dagaal sokeeye iyo hogaamiyad kooxeedyo isugu jira kuwa madani ah iyo kuwa military ah iyo kuwa diini ah ay muddo dheer soo maray wadeen waxa daba socday dadaallo dawlad dhis ah oo 2000 ka soo bilowday oo maalinba heer soo marayay oo hadda meel soo fariisanayay isagana runtii lahaa marxaladihiisa kala duwan waxa intaas oo dhan ay qirayeen in dalkan uu ku jiro geedi socod dawlad dhisid oo marxaladaha ku habboon shacabka Soomaaliyeed ee daalan inay u banbaxaan wadadiisa haya sida la og yahay maamul dawladeed waxa saldhig u ah dhismo ama aragti siyaasadeed oo fadhida nidaam sharci ku dhisan aragtidaas siyaasadeed isu bedesha iyo maamul dawladeed oo isaguna sharcigaas ku dhisan haddaanan leeyaradaasi isku fariisan waa waxa in badan loogu celceliyo xasilooni siyaasadeed baa loo baahan yahay waxa weeye haddaan isfaham siyaasi imaan sharci kasta oo la sameeyo meel lagu maamulo ma uu helayo waxa kaloo ogtihiin siyaasad kasta oo jirta waxa saldhig u ah falsafad siyaasadeed oo siyaasadda ka dambaysa oo hogaamisa sida aan la wada soconno falsafadaha siyaasadeed ee Soomaaliya soo martay marka laga tago midii dimuqraadiga ahayd oo koobnayd oo ceebaha u badan ay lahayd inay ahayd dad markaas xukunku ku cusub yahay aqoontoodu liidato dhaqan qabiil uu yaqaana awoodda dawladnimeed oo yarayd ayaa waxa aad loogu sheegaa inay gacan bidixeeyeen hantidii yarayd iyo awooddii maamul yar haysay oo inta badan waxa la yiraahdaa musuqmaasuqa badnaa musuqmaasuqaas jiray 60meeyadii wili waa jira resource-ka yar baa keenaya shaqooyinka ilaa ay hadda la bixiyo waxa la yiraahdaa waa la musuqmaasuqay hantida yar ee dawladdu leedahay waa la musuqmaasuqay musuqmaasuqaasi waxa uu ka dhalan karaa waa faqriga iyo awoodda yar ee dhaqaale ee la haysto laakiin marka dhinaca kale laga fiiriyo awood maroorsi siyaasadeed oo weyn ma jirin laakiin 22 sano wuxuu dalka baray marka laga tago musuqmaasuqii kale iska soconaya intay dadkan faqriga ka baxayaan iyo dhibaatada
wuxuu baray maroorsi xukun iyo aniga eriyoo laygama daba oran karo arrintaasi waxay abuurtay walaaca maanta qof kastoo Soomaaliyeed uu joogo uu leeyahay waa walaacsana waxaan hadalkayga gundhig uga dhigayaa falsafada siyaasadeed ee xukuumadda hadda jirta oo muddo badan aanan fahamsanayn oo aan hadda maanta walaalkay Mahdi aan ka bartay waxaa ii soo muuqatay marka laga soo bilaabo 2 March ama bishii 3aad xeerkii la gudbiyay ee ahaa BR-ka oo ahaa in single constituency iyo liis xiran marka laga soo bilaabo oo hadda lagu tilmaamay in laga tanaasulay oo lagu xijiyo mid la yiri hybrid buu ahaa oo baarlamaanku uu sameeyay oo lagu xijiyo waxa halka hadda taagan waxa sartu ka qurmaysa waxa way falsafada siyaasadeed ee ku dhisan tahay doorashada ayaan la iska waafaqsanay Puntland maxay hadaba aragtaa Puntland waxay aragtaa tan iyo markaas in dalkaani uu ku jiro geedi socod siyaasadeed oo 4 sano soo socota ay muhiim u tahay in loo tago iyadoo heshiis la yahay oo heshiis laga yahay habka dawladdu u dhismayso sida awoodaha loo qaybsanayo sida resource-ka loo qaybsanayo dalka meeshu aadayo oo dastuurka waxyaabaha la yiraahdo qabyu ka yahay saldhigga u ah haddii intaas oo la sameyn la yiraahdo dalka doorasho la gelinayaa oo dalka dhanba hal goob buu noqonayaa oo dalka dhan hal maaragtay xisbi buu noqonayaa oo ku guuleysanayo oo xataa lagu dhacay sharcigaasi lagu dhago madaxweynaha dadweynaha dooranayo oo dastuurka waxyaabihii fundamentalka ah ama asaasiga ama maadida asaasiga la hareer maro horta halkaas waxa ka soo baxaysa koox rabto talada dalka inay xoogto aniga saan u akhriyo waa saas 17 September kii aan ku heshiinay wuxuu ahaa nidaam cad oo qeexan oo awooddu ay muuqato oo sida loo maamulayo cadda laakiin markaan ka tagnay Muqdisho gudiyada sida loo dhisaangareeyay sida la rabo in loo maamulo mar labaad waxa ka cad kii markii hore laga diiday oo single constituency ahaa mid bedelay oo ah doorashadu inay dad isku mid ah ka soo baxaan oo 4 sano dambe dalka hadana xoog lagu xukumo aniga waxaan ka digayaa marka aragtidayda waxa weeye dalkan jajuub uma baahna taladiisan in la xooga lama baahno dadka waxa la rabaa in la dhex dhigo doodahana waa inaan laga xanaaqin anisaan qabo qof walba ra'yigiisa dhiibto iyadoon la iscaynaynin la isxumaynaynin waxa loo baahan yahay dalkan dal la qarsan karo oo dad ay la carari karaan anigu inuu yahay uma haysto gabayada ma aqaan laakiin gabayga uu tirinayo Cusmaan Yuusuf Keenajid uu yiri waxa ku jirtay koox uu ku tilmaamay wadaniyiin iyo koox kale ka soo horjeedaya oo garnaqi doon sida uu dhahay hadda aan markuu celin kari laakiin waxa ii soo baxday billa Soomaali kaliya inay wadaniyiin inta kale tara inay u baahan yihiin in loo garnaqo annaga hadda waxba kama qabo in loo garnaqee waxaan rabnaa cid inoo garnaq lahayd inaan ku heshiino bas haddii ay odayaasha baarlamaanka noqonayaan iyo haddii xeer beegti kale noqonayso aan waxaan isleeyahay garnaqsi waa loo baahan yahay waana mid meesha ku jirta xaaladda hadda dalka uu ku sugan yahay aniga ma rabo inaan aad ugu dheeraado maxaa yeelay intan waa intii ogeyd laakiin waxaan aad u ayidayaa in doodo macno leh oo ku dhisan falsafado siyaasadeed oo ku qotomo sharciyo sax ah oo noqonaya masiirka 100 sano soo socota siday Soomaaliya u ekaan lahayd in goobtan laga curiyo dambay ku jirtaa waxaan kaloo inta aan rabaa inaan ugu soo dhawaado doorashada hadda 2021 la filayo dabcan heshiiskii 17 September intii gashay oo anigu aan ka mid ahay wili ma arag cid diidan oo heshiiskaas madaxweyne xasan sheekh oo u hadlay musharaxiintana inaan heshiiskaas dhibi ka jirin buu tilmaamay qof dhib ka qaba waa dhici kartaa laakiin waxaan malaynayaa inta badan inaan heshiiskaas dhibi ka jirin waxa soo baxay habraacyo
isaga daftarkiisa dooda way ka imaan karaa laakiin waxaa ku qornaa qodob haddaan khaldanayn inuu jiro la oranayo habraacyadu waxaa loo noqonayaa 2016 kii ahaa marka haddii khaladaad ka yimaado kii 2016kiina halku yaalaa marka maxaa dhiman waaye marka waxa dhiman marka waxa weeye in doorashadii haddii heshiiskii la ogol yahay oo baarlamaanku ansixiyey oo habraacyadii waxna qoran yihiin waxna hore loogu soo dhaqmay waxaa la rabaa maamulka doorashada in hore loo galo oo aysan noqonin in koox siday rabto u maamusho waxaan anu ka digayaa marka mar walbana waxaa la yidhaahdaa doorasho ama go'aan unilateral oo kooxi leedahay ama qayb dalka ka ah halis aan laga soo noqon karin buu keenayaa waxaan ku baaqayaa in la isku soo noqnoqdo ceeb maaha in la doodana ceeb maaha in wax waa la issaafinayaa qodobada hadda u muhiimsan ee taagan ani marmaraa dad waxay yidhaahdaan oo hadda dhallinyaro xoogaa hadalla loo soo dhiidhiibay madaxweynaha waa puntland maxaa geda ka galay oo hadda geda soo soomaaliya maaha horta doorashada laga hadlayo soo doorashadii soomaaliya maaha rag odayaashay saaxiibadeen waxay dhaheen war siciido adi af dheerida maxaa somalilan kaa galay horta somalilan xidid iyo qaraaba iyo saaxiib baana halkay joogaano haddaanan anigu hadal oo mas-uul soomaaliyeeda yaa ka hadlaaya waxa aan ka hadlayna waa doorashada soomaaliya iyo heshiiskii la galay dulduleelada uu leeyahay ma aha nin walba in la yiraahdo sidoo hadda saaxiibka axmed xoogaa wuxuu yiraahday kiligay bay igu noqotay hadda kiligiis kuma noqon anoo hadlayo waa la arkay la tahay marka rag badanna way ka hadleen wixii dooda ama puntland ha ka jirto ama meel kale ha ka jirto in qofkii marka ay u muuqato uu ka hadlo waa waxa la rabo waxaan aad ugu faraxsanahay oo weliba si gaar ugu mahadcelinaya madaxda dowladda federaalka ee shirkan ka soo qayb gashay sida niyad samida iyo dooda furan ay bilaabeen weliba ee ra'iisul wasaaruhu aad baan u farxay markii hore hadalka waxaan islahaa martiba lagu yahay aad ha u hadal laakiin markuu hadlay xoogaa waa dhiirada waxaan isiri doodii waa lagu furay adna taada dhiibo waxaan isleeyahay dhowr maalmoodna waa harsan yihiin waa la doodi doonaa shirar gaargaar waa la yeelan doonaa waxaan anigu mar walban ku celceliyaa oo ku samahay dalku inuu doorasho gelayo inta aan shiraynay waxaan ku xiraynaa hal qodob halkaa qodob wuxuu ahaa doorasho la isla ogol yahay oo wakhtigeeda ku dhacda haddana weli waxaan taagannahay wakhtiga waa ujeedaa waa ciriiriye laakiin in la isla ogolaado waa daruuri in la isla ogol yahay haddii mid dad gaara ogol yihiin la galo haddee dad gaara doorashadeed bay noqonaysaa dalkan waxaa la dhihi jiray laba hadaloo halhaysoo soo baxay baa jiro ayaantan la ilaaway oo ahaa loo joojin maayo kuwa kalena waxay dhihi jireen yaa looma dhamma marka haddaan nin wax joojin mid kalena uu dhaho looma dhamma hadda sidii loo kala fadhiyey waa weli loo kala fadhin doonaa halna ogaada constitutionka inkastoo madaxweynuhu hadaayta xasan uu yidhaahday kumeelgaarka waa ka baxay dastuurkan weli waa kumeelgaar professional weeye puntlandna weli waxay xaq u leedahay inay dastuurkeeda ay ku dhaqanto ilaa harmonisation laga samaynayo lays ogolaysiinayo doodeeda ay dhiibanayso oo si cad soomaali u heshiinayso haddaanan la heshiinin annaga waxaan u taagannahay dowlad dhiskaan ka shaqaynaa hadda laakiin puntland shaqadeeda waa haysataa isteedyada kalena waxaan rajaynayaa shaqadooda haysta inay wax isku khaldamin caadifadna inta meeshan ku jirta iyo sacabka layska daayo koox intii la soo kaxeeya sabciya waxay taraysa ma leh runta in laga hadlaa la rabaa ciyaal yaryar intii loo dhiibo maxaa la yidhaahdaa bahalkii meelahan ilaa facebooka haddana wareeriye 10 qof oo hadlaysa niman xarfaanoo maxaa la yidhahdaa bahal lagu sameeyo intay barnaamijyo geliyaan 10kii qof waxay ka soo saarayaan 200 oo qof marka haddee been haddii la isku sheego saaxiibkay qorqora ayaantan maamaha waxaa ka bartay wuxuu yidhi nin damac badan xoolihiisa beellow waa iska loo yidhi maalin walba waa damaca badan anaa kala soo waxaas macno samaynayso damac dalkan ani waxaan qabaa dalkan dad u danqanayo unbaa ka shaqayn kara meel la damco oo wax kale laga damco ma yaalan waa rajaynayaa maadaama aniga dadka barti ahayeen kuwa dagmaan ugu talagalay inay xishoon afka ha la furto ha la hadlo kadibna ha la heshiiyo waa mahadsantihiin